dowladda Abiy ayaa maanta soo saartay war-saxaafadeed ay ciidamadeeda ku wargelinayso inaysan gelin gudaha deegaanka Tigreega oo ay ku ekaadaan sohdinta labada deegaan u dhaxaysa iyadoo ku sababaysay si uusan u dhicin khalad la mid ah kii hore xilligii bilowga dagaalka balse siyaasiyiin badani ku macneynayaan inay dib uga istaageen dawladna waaweyn oo loo dhigay aaga sohdinta laga galo deegaanka Tigreega dhinaca kale guriga cad ee Mareykanka looga arrimiyo iyo safaaradooda Addis Ababa ku taala ayaa soo dhaweeyay ka bixitaanka ay ciidamada Tigreega dib uga baxeen deegaanada Axmarada iyo Canfarta iyagoo ku tilmaamay talaabadan Tigreega qaadeen mid albaab cusub oo dhanka diblomaasiyadda ah furi doonta iyo inay tahay mid ka mid ah baaqyadii faraha badnaa ee Mareykanku marar kala duwan u soo jeediyay dhinacyada dagaalka isku haya oo hadda dhaqan gashay walow xilligeedii la soo dhaafay haddana in la isdaba qabto waa muhiim ayay dhaheen iyagoo dhinaca dowladana ugu baaqay inay joojiso dagaalka dhanka cirka ah ee shacabka Tigreega sida joogtada ah ugu hayso maadaama oo garabkii la dagaalamayay ciidamada Tigreegu ay maqleen baaqi beesha caalamka si la mid ah inay dowladuna maqasho oo shacabku u danayso mar haddii aysan jirin ciidan la hardamaya sidoo kale waxay dowladda Mareykanku ku boorisay taliska Addis Ababa inuu si buuxda u furo marinada deeqaha maadaama aysan haatan jirin cid kale oo hortaagan haddii kale dowladdu qaadan doonto mas'uuliyadda ka timaada gaajada iyo nafaqa darrada saameynaysa shacabka deegaamada Tigreega iyo Axmarada ee dagaaladu saameeyeen kuna firdhaday buuraha kaymaha iyo baadiyaha gudaha iyo agagaarka deegaamadaas iyadoo on iyo gaajo la tawaalaysan iyo in la iskula xisaabtami doono dayaca mas'uuliyaddaas ka yimaada iyada oo loo aqoonsan doono inay dowladdu gaajaysiin iyo macaluulin dadkeeda ugu adeegsatay ala dagaal ahaan kuwaasoo dhawaantan laga soo saari doono shuruuc qoran oo gaar ah taariikhda abid markii ugu horeysay oo ay ku suntan yihiin sida la sheegay taliska Itoobiya maanta ka arrimiyay iyo dhigooda Eritrea waxaa intaas dheer inay maamulka deegaanka Tigreega iyo hogaaminta ciidamadoodu hoosta ka xariiqeen in iyaga oo nidaam diblomaasi ah dartiis u baneeyay magaalooyinkii ay ka haysteen deegaamada Axmarada iyo Canfarta oo ay qaateen soo jeedintii beesha caalamka inaysan suurtagal noqonaynin inay indhaha ka eegtaan oo gacmaha ka laabtaan shacabkooda oo dowladda Abiy si joogto ah diyaarado ugu duqeynayso maalin walba balse ay jawaab cad ka bixin doonaan haddii aysan beesha caalamku hor istaagin taliska Addis Ababa ee faashistiga ah oo si cad uga hor yimid heshiiskii uu qaatay ciidamada Tigreega ayaa warqad ay u direen qaramada midoobay kaga dalbaday in shacabka Tigreega laga joojiyo duqeynta dhanka cirka ah ee Abiy ku hayo haddii kale ay tallaabo dhakafaarkeenta qaadi doonaan dhinac dhulka ayay isu dhigayaan beesha caalamka oo ay isu tusayaan tahayna inaysan itaal drone la dagaalami karahaynin si ugu yaraan quwadaha caalamku uga hor istaagaan wadamada droonta ka iibinaya xukuumadda Abiy amaba ay taageero u dhiganta iyo difaac xoogan uga helaan dhinacna waxay ku goodinayaan inay dib ugu laaban doonaan deegaamadii ay ka soo baxeen kuwa hor lehna furan doonaan iyagoo la ku soconaya dhaga adayga beenta iyo qorshe xumada kooxda BB ayay ku sheegeen inuu dhaxalsiin doono tanina ma ii dambeysay yaa ilaha maxaa igu watay iyo jabkii ugu xumaa ee abid dunidan ka dhaca waxaana TPLF ku jirtaa wax u eg ka muquro maalmaha barkood kadibna inta ay muqurtaas ku jiraan beenta ay BB faafiso inay dib daaha uga raga